wararka kaliya ee ay warbaahinta caalamka oo dhami aadka u faaqidayso waa kuwa ku saabsan xanuunkan safmarka ee dunida ku faafay ee COVID-19 magaalada Wuhan ee gobolka Hubei ee xanuunkani ka soo unkamay oo dalweynaha Shiinaha ka tirsan ayaa maanta Arbacada dadka loo ogolaaday inay si caadi ah u socdaan oo xayiraadii dadka laga qaado markii u horeysay kadib muddo 67 cisho ah oo bando ah tan iyo intii xanuunkani magaalada ka soo ifbaxay dabayaaqadii sanadkii tagay waxaana saacado gudahood magaalada Wuhan markii xayiraada laga qaaday soo baxay dad gaariya 65,000 oo qof oo magaaladaasi ku nool waxaana muuqata in China oo xanuunkan ka kabanayo durba halka dunida kale qaarkoodna uu ku laxaadsanayo oo xayiraaduhu sii badanayaan tirada kiisaska la xaqiijiyay ayaa dalka Mareykanka hadda dhaaftay 400,000 oo qof waxaana uu Mareykanku ku jiraa maalmihii ugu dhimashada badnaa intii xanuunkani ku fiday dalkaasi oo shalay oo kaliya waxa New York ku dhintay dad ku dhow 1,000 qof waxaana la saadaalinayaa in cudurka corona ay dalka Mareykanka ugu dhintaan ama ugu geeriyoodaan dad tiradoodu gaarayso 240,000 oo qof sida ay shaaciyeen guddida gaarka ah ee madaxweyne Trump u xil saaray xakamaynta cudurka Ingiriiska laftiisa waxa la sheegayaa in dhimashadu sare u kacday 24 saacadood ee u dambeeyay ra'iisul wasaarahoodii ayaana weli ku sugan xaalad adag oo yaala qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka maalintii labaad caalamka oo dhan waxaa hadda xanuunka qaaday tiro gaaraysa 1.4 milyan oo qof wax ka badan 82,000 oo qofna waa ay u dhinteen iyadoo ay ka bogsadeen dad gaaraya 300,000 oo qof oo caalamka oo dhan sida ku xusan xogta rasmiga ah ee ay soo saartay jaamacadda Johns Hopkins oo isha ku haysta macluumaadka xanuunka la xidhiidha wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dawladda Israa'iilna waxa uu sheegay in tirada kiisaska dhimashada dalkaasi ay gaarayso 71 qof halka xanuunkana ilaa hadda qaadeen 9,400 qof waxaana uu wasiirku inta raaciyay in tirada 147 qof ay ku sugan yihiin xaalad adag oo quus ah Philippines wasaaradda caafimaadka ayaa ku dhawaaqday in xanuunku dilay 5 qof oo kale iyadoo oo ay soo kordheen kiisas gaaraya 106 qof 182 qof ayaana weli dalkaasi ugu dhintay xanuunka iyadoo oo tirada kiisaska dalkaasi marka la isku geeyo ay noqonayso 3,870 Iran oo uu xanuunku farabaas ku hayo isla markaana wadanka kaliya ee muslimka ah ee kaalmaha sare ku socda ah ayaa hore Mareykanka uga diiday wax caawimo ah iyo qafiifin cunaqabataneed oo xanuunka COVID-19 dartiisa waxaase maanta madaxweynaha dalkaas Xasan Rouhani uu hay'adda lacagta adduunka ee IMF weydiistay inay la soo gaaraan 5 bilyan ee dollar ee ay hay'addaas hore uga codsatay dawladda Iran si xukuumadda Tehran ay xanuunka uga dagaalanto waxaan ugu baaqayaa hay'adaha caalamiga ah in ay waajibaadkooda gutaan waxaanu xubin ka nahay IMF ma aha in nacayb iyo siyaasad la geliyo waajibaadka waxa aanu hay'addaas xaq ugu leenahay madaxweyne Rouhaniga Iran ayaa hadalkan ka yiri kulan dhanka shaashadaha la iska arkayay oo uu qabtay xukuumaddiisa madaxweyne Rouhani ayaa cunaqabataynta faraha badan ee Mareykanku dalkiisa saaray ku tilmaamay falal argagixisnimo oo dhanka caafimaadka iyo dhaqaalaha ah Jarmalku waxa uu ku dhawaaqay 254 kiis oo dhimasho oo cusub taas oo tirada guud ee xanuunkaas dalka ugu dhimatay ka dhigaysa 2,024 dalalka koonfur bari Asia la isku yiraahdo wuxuuga dhimashadu waa yartahay 24 saacadood u dambeeyay 30 qof ayaana dalalkaas maanta dhintay inkasta oo kiisas badan oo dad xanuunka soo ritay ah ay jiraan dalalka Belgium iyo Spain ayaa saacadahan aynu joogno ugu dhimasho badan maanta oo Isbaanishka saacadahan oo kaliya waxa ku geeriyooday 510 qof iyada oo maanta oo qura ay xanuunka u soo dhaceen 4,748 qof dalkaasi Isbaanishka Belgiumna 205 ayaa hadda geeriyooday waxa wali daqiiqad u soo kordhaya oo badanaya tirada kiisaska dhimashada iyo kuwa kale xanuunka qaadaya ee dunida bangiga adduunka ayaa sheegaya in xanuunkan saameyn ballaaran oo toban uu ku yeeshay bulshooyinkii hayntoodu yareed iyo kuwii laajiga ku ahaa dalalka kale waxaana la sheegayaa in ay istaageen lacagihii dadkaasi u diri jireen qoysaskooda isla markaana ay lumeen shaqooyin badani dalalka Lebanon, Ukraine iyo Philippines iyo qaxoontiga reer Myanmar ayaa kamid ah meelaha ugu daran ee arrintaasi saameysay waxaanu bangiga adduunku sheegay in 690 bilyan ay adeegyada xawaaladu hoos ugu dhaceen